halkani waa raadiyo Hirsamo oo idinkaga imaanayso xarunta baraha bulshada ee ku xiriirto sida YouTube-ka iyo page-ka Facebook ee ah raadiyo Hirsamo. dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij aynu ugu magac darnay Beer Murti. barnaamijkan oo ka mid noqon doono barnaamijyada ka bixi doono idaacadeena Hirsamo. mar kaleeto kuna soo dhawaada barnaamijkeena Beer Murti oo kala socon doontaan idaacada tan Hirsamo. waatahay dhegeystayaal aynu ku bilowno barnaamijkeena aad ku xiisaha badan ee Beer Murti. haddaba Beer Murti oo ka mid noqonaya barnaamijyadeena aan ku soo bandhigi doono baraha bulshada ku xidhiidho sida YouTube page-ka iyo page-ka Facebook-ka ee raadiyo Hirsamo ama Hirsamo Tube Media. haddaba waa maxay Beer Murti? murtidu waxay u baahan tahay maskax lagu kala garto waxay xambaarsan tahay sida fariin duluc sheeko wadata iyo wixii markaa la mitaalan. maxaa loogu lifaaqay beer? beertu waa dhul ay ka baxaan dalagyada noocyadiisa kala duwan, taasoo markay bislaadaan noqonaya inaad iibgeyn u samaysato beertii dalageeda kuu soo go'ay. haddana tusaale waxaaba lagu dhex geeyey dhul daaqsimeed qurux badan oo beerta ku yaalo, mana garan kartid geedaha iyo dhirta ka baxaya in beerta. taana maxaanu dhihi karnaa waa inaadan kala aqoon noocyada beertaasi kasoo go'aya, balse maxaa loo baahan yahay ood ku noqon kartaa qof hadhow si fiican u kala fahma waxa dhulku daaqsinkaasu kasoo baxayo uu yahay. taasi waxaad ku kala ogaan kartaa inaad tahay beeraley ama aad ka agdhawaato dadka wax badan ka yaqaana cilmiga beeraha. haddaba maxay tahay ujeedka aan kaga gol leenahay magacan Beer Murti? Beer Murti waxaan kaga gol leenahay in lagu kala garto habdhaqanka bulshada ku wada xiriirto ayadoo hab gaaban oo weerar dhaadheer kugu qaadanaya aan ku soo bandhigi doono barnaamijkan si gaaban. habkan gaaban waxaa ka mid ah fariimo 3 eray uun ka kooban. tusaale waxaa ka mid ah mahmaahda. mahmaahdu waa duun ka mid ah tiraabta hadalka, taasoo haddana u nasbaysan qaab tixeed. mahmaahdu waa mid soo koobta halkii tiraab dheer oo yacni hadal badan ku lifaaqan lagu yareyn lahaa. matalan aan soo qaadano murtidan mahmaahaysan ee ah hadal badani haan ma buuxsho. dabcan hadalka badani wuxuu saameyn ku lahaan karaa maskaxda qofka iyo caqligiisa, sida ay inta badan sheegaan kuwa ku xeel dheereeya arrimaha cilmi nafsiga. beddelkeedana waxayna tusaysaa in hadalka badani aanu waxba laga ogaan karin, waayo waa tii lagu tusay yeelay inuusan hadalku hadduu bato xitaa ahaan buuxi karin. waa tahay aan soo qaadano matalkan isna quseeya mahmaahdan. ruux baad wada sheekaysanaysaan, haddana mid kula sheekaysanayo wuxuu rabaa inuu sheeko taariikh fog oo weliba waqti badan kugu qaadanaysa inaad hal iyo labo mid ka fahanto. wuxuu qofkaasi kaaga sheekeynayaa, balse hadduu kuu soo koobo waxaa dhici karta inaad wada ogaato dulucda ku qotonto wuxuu ruuxaasi sheekadiisa kaaga baxday. ha yeeshee maahan micnaheedu in hadalku dheer aan waxba laga fahmi karin. waxaase ka fahaniyo fiiro fudud hadalka yari, waxaana la mid ah in cuskashadan leh af daboolani waa dahab oo u dhiganta inuusan qofka war badnayn bulshada ku dhex leeyahay qiimeyn gaar ahaaneed. ha yeeshee maaha in wax walba oo naftaada, dhaqankaaga iyo diintaada ku diidan aad ka aamusto.
waa tahay dhegeystayaal waxaa halkan inooga ka qormadii gaabneed ee beer murti aan kaga hadlaynay maanta si kooban ah balse waxaa mar kale aanu soo qaadan doonaa waxyaabo kala duwan oo aad u xiiso badan maadaama barnaamijkeena maanta uu bilow ahaa qaybaha kaleeto ayaad warbixinaadkan iyo kuwa ka duwan aad ku maqli doontaan halkana waynu ku sii hakinaynaa barnaamijkeena beer murti oo kala socoteen idaacada Hirsamo.